السلام عليكم داوديال meel kasta aad joogtaan isi kastoo aad inoo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono wakiilka xisbiga wadajir ee dalkan Australia mudane Cabdiqaadir Qaliif Suudi oo loo ogaal og yahay DDL waxaad ku soo dhawaataa waraysigan gaarka ah mudane waa mahadsan tahay waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan madaxda iyo taageerayaasha xisbiga wadajir iyo si lamid ah bahdina warbaahinta oo galabta meeshan uu soo booqday aad iyo aad mahadsantiin salaamu calaykum adigana waa ku mahad celinayna mudane marka hore bal waxaad inooga warantaa xafiiskan cusub ee xisbiga wadajir oo ku yeeshay dalkan Australia iyo waxyaabaha uu qaban doono meeshan xafiis ma furo laakiin wakiil ayaa jiro maadaama iskeerta shaqooyinka la qaban karo ee meeshan muhiimadda wakiilkuna waxa waaye inuu hadafka iyo aragtida xisbiga ka gado jeeliyada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sidoo kale markii xisbi la sameeyo xisbiyada waxa boolisigooda waxa kamid ah in maamul goboleedyada iyo meel kasta oo deegaanka kamid ah inay xafiis ku leeyihiin sidoo kalena jaaliyadihii maadaama iska baaheen oo dibadaha iska wada aadeen in meelshi kasta oo maartay jaaliyadaha Soomaaliyeed ay joogaan ay aragtida xisbiga ka dhaadhiciyaan oo ay joogaan oo wakiil ku yeeshaan intaas ayaa hadda runtii ugu muhiimsan waxa la labayaa hadii mararka qaar madaxda xisbigu waxay soo booqdaan dibadaha soo aadaan inay iyaga laftirkoodu markay dibadaha soo booqanayaan aysan marti ku noqon oo maartay dad u abaabulo ay ku yeeshaan maartay soo marti geliya intaas waa muhiimadda la qabtaa sidaas waa arrintiisu okay marka taa ka soo gudubno aragtida ku aadan xisbiga wadajir xaaladda dalka hadda uu marayo dhanka amniga iyo dhanka siyaasadda runtii aragtida ku aadan xisbiga wadajir aragtida oo ka qabo dalka meesha uu marayo dalka wax ka jira oo hadda maanta la taaban karo markasta wax la qiimeeyaa waxa lagu qiimeeyaa meeshii maamulka jooga meeshii ay wax ka bilaabeen iyo meeshii la joogay meeshii la rabay inay gaaraan ayaa muhiim markasta qiimeynta halkaas la laada maanta ma jirto amni laga sheego Soomaaliya kama jiro waxaan wada ognahay xilligii dawladdan imaanaysay min Hiiraan ilaa iyo Baydhabo Baraawe baabuurta caadiga dadka madaxda ah xildhibaanada laga soo hadda ku jooga markii laga soo dooranayay ay sheegay goboladaas markii aadayeen doorashada aadayeen dhulkay marayeen basaskooda qaadanayeen baabuurtoodii ku socdeen ciidamada xarumahaas meelaha ay degan yihiin si lamida dhulkay mari jireen logistikadoodu cabsi ha jirto oo macnaha cabsi la'aan ma jirin laakiin waxa xaqiiqa dhulkay mari jireen maanta waxa loo yahay afgooye meel ka sheeyay oo ciidanku markay afgooye u socdaan dawladdu u socdaan waa inay kolonyo isdifaacaysa karta ay yihiin inta kale diyaarada loo raacay jawhar waxa ay marqaatiya daahir jeesow iyo qadiija diiri oo jawhar laga soo doortay xilligaas basasaan ku tagi jirnay afgooda ka laha laakiin maanta inay diyaarada raacaan ma matay karaan marka xagga amniga sidoo kale jidadka ayaa furay maxay jidadka magaalada Xamar way furaayeen Maka al-Mukarrama anigana baabuur ku mariyay markii dawladda ra'iisul wasaaraha la magacaabay Khayre markii la magacaabay waa jooga Xamar Maka al-Mukarrama jidka wadnaha dirta ana kaliya baabuur ku mariyay anoo gacanta ku wata hay'ad dawladda kamid ma ahayn kuwa shirkadaha kamid ma ahayn taas waxay ku tunaysaa xagga amnigu sida uu noqday shabaab ma qaadeen canshuurtan labada qaybood oo ay sheeg dawladdu intay qaato kala ma qaadeen maamul goboleedyo iyo dawlad saaxiiba ayaa dawladdan gudoontay oo kale oo xilligaas jiray maanta marka waxa la fiirsho wixii laga sugayo inay qabtaan waxay ka qabteenna male meeshii la joogayna dib ay uga soo laabteen la dhihi karaa markaan u noqono dhanka amniga oo kale wadooyinka xirnay dawladda waxay sheegtay in xaalad amni loo xiray marka soo amniga kama shaqeynayna mar haddii wadooyinka xireen xaalad amnina ay sheegeen in loo xiray dhibaatooyinka inta ay ka badan lahaayeen waa maadsantahay amniga marka laga hadlayo anna waxaan rabnaa shalay amni ma jiray maanta ma jiray kee fiican aan raadinaynaa macnaheedu haddii shalay jidadku furaayeen dawladdan intay joogtay ay xirmeen dawladdan waa ka dartay waxba ma keenin wacnameed inta muhiimadda loo socdaa dawladdan maxay qabatay ayaan la ka rabaa maxaa xaaladdu maalintii 2017 xilka lagu wareejinayay dawladda hadda joogta iyo maanta amnigu koo fiican yahay communicationka maamul goboleedka iyo dawladda koo fiican yahay ummadda bahalka ii sheegay sumcadda dawladda tay fiican tahay dhaqaaluhu ku badnaay miisaaniyada la kordhiyaa maqasho xataa miisaaniyada la kordhiyaa waxa waaye canshuurta qoraal ahaan loo gudbiyaa maahane ma jirto lacag meel taalo oo laga soo qaadaa ma jirto oo hadda miisaaniyada dawladda in meeshii ugu fiicneed ay gaartay waxaas waa saxaafadda idaacadaha facebookada lala wadaagaa maahane markaad hoos u akhrisid wax ka jira male dad badan oo dhaqaalaha ka warqaba ayaa markasta isla xiriirnaa
waxaas wax ka jira marka maalintii dawladda aniga maalintii ay timi dawladdan iyo maanta inta u dhaxaysa marka la fiirsho hadda ayaa amnigu ku xun yahay xiriirka dawladda meel kasta ee baartiisha maamul goboleedyada xiriirkooda ku xun yahay dhaqaaluhu ku xun yihiin wax kasta maanta ku xun yahay xiriirka dawladda ee maamul goboleedyada maamul goboleedka dawlad goboleedka galmudug dawlad goboleedka koonfur galbeed dawlad goboleedka hirshabeelle intaba dawladda saaxiibay leeyihiin saaxiibtinimadoodu maamul goboleedku wuxuu leeyahay xaqaa jiro meeshii markaad leedahay niman maamul goboleedku saaxiib lama hane maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo ka jira galmudug miisaaniyadda hal gobol qaato gobollada kale ay saddexdoodu qaataan 3 milyan ay qaataan maxaa loo siiyey waxa weeye 3 nin ay siiyaan maahane maamul ma siiyaan lacag 3 nin oo maamuladaas ka tirsan ayaa lacagtaas la siiyaa micnaheedu soo waxaad fahmaysaa hadday maamul goboleed yihiin wixii Puntland qaadato wixii Jubbaland qaadato wixii Somaliland qaadato ay qaadan lahayd hadday maamul goboleed sax yihiin marka waxa halkaas kaaga caddeyn adiga rabaa inaad isku filaysiiso 3 maamul ee hal maamul ah maxaa xiriirkoodu yahay micnaheedu xuruuf ahaan ay u jiraan markaad dhinac ka fiirisid sababtoo ah markii maamul goboleed sax waa maamul goboleed waa jira cidina ma dhihi karto maamul goboleed ma laakiin maxay qabtaan dad wax u qabtaan majiday dhisaan ma amniga ka shaqeeyaan lama arko waa 3 nin oo madaxweyne saaxiib la laakiin sidee macquul ku noqonaysaa haddii aad leedahay raggan xulufay yihiin haddana budgetkooda maamul goboleedyada la siiyo ayagu waa kuwa ugu liito marka qofkii xulafada la ahaa in la liido qof kalena dawladdu nin mucaarad ay wax siisaa maahan is leedahay ama awoodiisa dhin ama awoodiisa soo cusho laakiin kuwa ayadu ay leedahay shaqaalaha dawladda kamid mushaarkooda qaataan xisbigan wadajir ee wakiilka Australia u tahay inta badan waxa lagu eedeeyaa in dalal shisheeye ay u shaqeeyaan sida imaaraadka oo kale oo hadda kor markii Cabdiraxmaan guriga lagu weerar la sheegay in dhor laga qaaday arinta kale Kenya in sidoo kalena waa lagu eedeeyaa bal arintaas markaad xaqiiqada rabtid markaad maqasho xisbiga wadajir ah qolo ku xiran markaad maqasho in la soo weeraraa malaha la qalqaalinaya waagi hore waad ogtahay markii la weerarayay sideedaba markaad waxyaaba niman meesha ka shaqeeya niman xarfaan waaye markii ii sheegay ay rabaan inay meel weeraraan asbuucyo ama bilo ayaa meydiyada waxaa la sii gelinayaa blackmailing sheeko ah oo suuqa la sii geliyo oo qofkaas lagu banaysanaya qaabkii loo weerari lahaa marka hadda haddii warka adiga sheegaysa oo run yahay weerar kale xisbiga wadajir meel ay joogaan inay feejignaadaan waaye sababtoo kii hore wuxuu ahay 18 milyan meeshan taalla imaaraadka u shaqeeya marka naqshad kale oo cusub inuu nagu soo socdo ayaan arkaa haddii arintaas jirto markii taas laga soo tago xisbiyada mucaaradka waxay eedeeyeen guddiga doorashada cusub ee la magacaabay xisbiga wadajirna waa uu ka mid ah xisbiyadii arrintaasi ka soo horjeestay marka ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya mudane guuleed oo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yiri waxa jirto waxay cabsi ka qabaan doorashada oo kalsooni buuxda iskuma qabaan bal arrinkaasi waa maadsan guuleed warta waa dhageystay warkiisa xisbiyada markii loo fiirsho horta asaga cabsi ku jirtaa cabsi haddaysa ku jirin waxaa la yidhi maxay indhadayg waa raasamaala meesha uu ka yimid asagoo og shalay markuu dawladdan dhulka uu imaanayay wuu ogaay meesha ay maraysay amnigu maanta uu joogana waa og yahay dawlad iyo dawlad goboleedyo iyo dawlad saaxiiba loo dhiibay waxaa loo dhiibay jidad furana loo dhiibay amni shaqeeyo oo gobolada doorashada ku soo galayaana loo dhiibay maanta inaan intaasoo dhan la samayn karin wuu og yahay wuxuu soo qaatay xigmad nin leeyahay dib u soco hore u soco hore u soco dibna u soco darandooriyo soo qaatay hadda waxaan dhihi karaa asagaa wuxuu ka tegey tii hore tallaabadii hore u socda ahayd asagaa ka tegey oo meelihii shalay amnigu ka jirana ka soo baxay darandoorina ku jiro filla Soomaaliya aan dhaafsiisnayn marka maadaama uu sidaas og yahay wuxuu sameeyey xisbi guddi qayrul caadiya oo aan sharciyad lahayn guddigan doorashada marka la samaynayo markii laga soo tago maamul goboleed wax ka magacaabeen at the end of the day wuxuu tagaa musharaxiinta loo magacaabo ma iyaga asaga loo magacaabayo maamul goboleed shaqo kuma yeelanayo shaqada ay qabanayaan waa dadka musharaxiinta waa inay nina dilaan nina daayaan la rabo oo nina xakunka siiyaan nina ka qaadaan micneed waxaa laga rabaa markii qof shuruudo u leeyahay marka shuruudahaas waa inuu ku yimaadaa marka guddiga qofka kamid noqon kara ee dawladda xibinka ah waxaa laga rabaa horta guddiga sidiisa markii ugu horreysay qodobka koowaad waa inuu dawladda ka madax bannaan yahay waa inuu xisbiyada ka madax bannaan yahay waa inuu siyaasad ka madax bannaan yahay sidiisa qofka ka mid noqona dawladdaad ka mid tahay soo maaha 3 bilood ka hor waxaa lagaa rabaa inaad iska casashid application na xareysatid haddii laguu soo ogolaado iyo haddii kale ka mid noqoshadiisa labadaba lama soo marin
xooghayntiisii iyo staafkiisii security-ga markuu ka dhigay guddigii doorashada xisbiyadu ma waxay imaanayaan inay xibnaha in lambarada u tiriyaan asagaa doorashada wuxuu isku dayay 10 dariiq soo maray wuxuu isku dayay inuu yiraahdo doorasho qof iyo codaan keena Soomaalida waxay yiraahdeen taas waxa leeyahay kama aada soo shaqeyn qodobkaasna seergali lama gaarin lagu yiri shalay wuxuu ku soo baxay maxay ii sheegay Ethiopia nacbahay Ethiopia ayuu markii hore wuxuu ku soo galay doorasho shalay markii uu yimidna wuxuu fahmay inuusan baashi ka shaqeyn karin muwaadin Soomaaliyeed la qaaday oo deposit bank hadda waxa ka deynsanaysa waa la yaqaan waxa laga rabaa capital asset in lacag haysta laga rabaa wax lagu si lagu aamino mujaahidkii ummadda Soomaaliyeed u dagaalamayay ayuu ku sharfanayeen ayuu deposit u dhiibay filinkii haddana Kenya uu dibacay inuu haddana doorasho kale ku galo Kenya waxa la yiri sorry filinkaas hore soo galnaa nimankan marka hadii tii doorashadii ka xirantay ii sheegay dawladda la dirina ka xirantay haddii waddanka waxay ka qabteen aysan jirin oo jid walba xiran yahay oo ay dib u socod digtoono ay arrintii ku dhamaatay doorashadii laga diiday dariiqa kaliya u furan waa qaab ah inay yiraahdaan tahriiban galeynaa ma fahamtay kii Liibiya meesha maxay dadka dhamay jiray tahriibkii Liibiya oo kale aan galeynaa inuu yiraahdo ha magafe kiiskiisii oo kale aan galeynaa staafkeena iyo bahalkii sheegay ciidankeena waxaan ka dhigaynaa guddiga doorashada ninkii diidan aan la dirino aan ku qamaarna wadadaas marka halka wado oo u furan oo ay isleeyaan aad ku qamaartaan waayo ninkaan ma ahane mahad guulade marka mahad guulade waxa laga rabaa shalay waxa la hadad been badan tahay in xasuus badan tahay inuu yiraahdo shalay maxaad u timid maxaad ku dartay waxa loo yahay maanta markuu qofku doorasho galayo waxa laga rabaa laba qodob qof walba laga rabaa ninkii joogay waxa laga rabaa maxaad qabatay maxaa ku qabiyaa ninka cusub oo de xisbiyadan hadda mucaaradka oo kala ana waxa laga rabaa maxaa ninkan qaba waayay maxaad ku daraysaa nimankan marka su'aasha u taalo ah ii sheeg maxaad qabateen wax ay qabteen lama arko maadaama ay waxay qabteen aysan jirin oo maanta sheeganayaan waxay ku qasbeen inay marka wada kale tacabir ay galaan wadadii tacabirka waxay ka tisay inay sidii magafihi askartooda iyo staafkooda ka dhigaan dadkuna waxay u tiriyaan arkay wixii ilaahay ka siiyay arkaan haddii ay dawladdu ku adkaysato guddigan doorashada in ay noqonayaan guddiga doorashada maamulayo maxaa talaabaha qaadaysaa annaga talaabadeenu waxa waaye hadda in meeshan looga sheego uma baahna talaabadeenu waa arrin kale looga jawaaba markii ay timaado marxaladdu in laga hor dhaclo markay marxaladaas ay timaado ayaa la arkaa laakiin nimankaanu maanta wax ay qaban karaan oo ay sheegi karaan maadaama aysan jirin iridda u furan waa staafkeena hala qaato waardiyeena hala qaato sababtoo ah maxaa laga qabtaa wax ay sheegi karaan ma jirto ma waxay leeyihiin nin baan shalay dhiibno mid kale aan dhiibayna ma nimaan weerarnayo mid kale haddana weerarayna nin baan xil ka qaadnay xilkaan nin kale ka qaadayna gudoomiye baarlamaan xil ka qaadnay mid kale ka qaadayna garsoor oo ay leeyihiin garsoor filla Soomaaliya ka shaqeeyaan sameeyay garsoorka ka shaqeynayna sababtoo dastuurka ma dhameystirin garsoorka ma dhameystirin amnigii wax kama qaban maamulgoboleedii heshiiska waa kala direen hal point oo maanta dawladdaas ninka shaqeynaya oo sheekar xasan sheekh wuxuu yiri warqabiyaan ka tagtay sax ahayd maanta nimankaan wax qabiyaha u yaala lama arko jid ma qabiyaa isbitaal ma qabiyaa sababtoo inta kala saas soo sameeyeen wax kale haystaan meesha ma jirto soo marka mahad guulad waxa laga rabaa wajika keenada inta iska daayo yoosan isticmaalin wixii shalay 3 sano 2 sano ka hor markii farmaajo uu Ethiopia dadka inta u dhiibay oo lahay maamul goboleed ka soo xiray wixii uu sameey jiro inta xooga wadaniinta meel ku balansado inuu san laba eray xaraf inta ku soo horiyo qosol oo sadhiin waxa uga fiican inuu yiraahdo shalay maxaad u timid maanta saxgeed joogtaa marka ka soo tagno mudane mahdi guuleed waxa jira in wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya meel munaasabada uu ka hadlay qodiisa oo sheegay in xisbiyada mucaaradka yihiin kuwa maseersan annaga ninkaas horta nima asnaqaan maahan waa nin xoogaa cusub laakiin hadalkiisana waa dhageystay wuxuu ilaa ka anaga markaan meelahaas joogno waxa la dhigi jiray ninku hadduu maamaayoyinka kaba soo qaato dumar iyo baalkii dawaco iyo wax ka soo qaato annaga maba loo jawaabi jiray waxa la dhigi jiray warka waa ka xiran yahay ninkan ayaa la dhigi jiray marka hadda qolada dhageysanaysana oo waxa wajigiisa ka muuqata in xataa wadaniyiinta dhageysanayaan xataa qoladii maxay xooga wadaniyiinta oo markii dhageysanayaan xataa inay isku qanacsan hadalkiisa ay ka muuqatay marka ninkaas anu hadda marka inuu ku sii fogaado maadaama nin cusub yahay wali waxaan daawadayaal bartamaha kaga jirnaa wareysigii gaarka ah aan la yeelanaynay wakiilka xisbiga wadajir ee dalkan Australia mudane Cabdiqaadir Deydile Cabdiqaadir markii aan wareysigaasi ka soo aan u yaraha kano waxaan ugu maqaalaa in aad gabiidid dhowr gabayna aad ka tirsay xaaladda dalka bal arrinkaas ka waran arrintaas gabay ma ahayn
laakiin marba waxaa jirtay waagii oo maaragtay dowladda cusbeed oo hadba in cabdishakuur weerar cabdiqayb diid weerar qalbi dhagax dhiib markii waagii arrinta ku jirtay ayaa xoogaa aniga qiira qaaday mugta dadka hadda siyaasiyiin waa iska qiiroonaysaa mararka qaar waxyaabaha qaar ma dul qaadan kartid marka waxaa la dadaa ku diriri doono markii sheekh qalbi dhagax dhibay dadaa ku yaaci doona madaxtooyada wadaniyiin aan Soomaaliya iska wada dhigi jirtay mugta wadaninimada inay jirin marka xasir midha qolka gabi doonto qoladii gabay iri marka qoladii waxa sir qola gabi jirtaan telefoon u diro waxaan ku ma gabayden waxa uu gabaysan arrintan wax kale dad weyseen waxay soo baxday inay gabiyen aniga marka wax soo baxday marka arkay inay wax u socdo jirin si aan xoogaa xanaaqi isaga biyo in aan sheekadii xogti aan aruusho sidii wax u dhaceen aruur jira aniga in aan laxm gabay saaro marka gabay laxm saar wax la yiraahdo asfiya maare aniga gabay ma aqaan waa tiri mid waxay ahayd arrintii xoogaa cabdi qaybdiid marka sidii ay dowladda nimanka hadda jooga markay ay mission fulinayaan missionka sida Hollywood aad maqli jirtay ma Hollywoodka sidiisa filmaanta waa la qoraa waa nima alifa waa la gareeyaa marka waxa la yiraahdaa nimba intaas oo kuleeyahay ayaa la yiraahdaa marka mishinada marka loo diraa ay dirayaan nimankan waa la dardaarma ciidanka waxba loo diraa ayagana waxbay qabanayaan ka bacdan ciidanka nigga system iyo excuse-kii la bixi lahaa waxa waa diyaarsan marka cabdi qaybdida xoogaa maartay wixii qaarna oo kale loo daa waxa la yiri ninba hadda koro uu yiri colaadha wiir loo aan ma dhaafto ayaan dhabaxashi markaan maadaama aan gudbin qayb badan iloo horta sidii runta daar laakiin wax yaraan ka soo qabanaa cabdi qaybdi arrintiisa waxa ku jirtay xildhibaano baariyaal inta ka dhex galo arrinta cabdi qaybdi tii gurigii lagu weeraray tii guriga lagu weeraray jiray xildhibaano baariyaala bartii shaqadooda jooga dilkooda ninkii baneeyay staafkiisii u baaqay bugsiyo boqonta gooya wixii baydkiisa jooga hal qorayuusan badbaadin si uu raadku basbeelo booskiinii hore ku laabta intaan baddu soo butaacin anaa balagii lulaaya anaa biyo sayrinaya baroorta anaa aqaana booqashada anaa horeeya beri baan ka ahay ku baaqi dalkan aniga ka boos macnaha adinku markaad mishinka fulisaan isa kala taga ka bacdi anaa taga wax iga booqashada ugu horeeya male dhulka anaa isla dhigaa waxaasa marka mishinkaas waay booqashada anaa horeeya beri baan ka ahay ku baaqi dalkan aniga ka boosa hal beri aniga ku keeni hal beri aniga ku baari bartaana anaa ku keeni wixii baladan sameeyay bulshadu beedkay ha aado dib dambana ay bidhansan hadda cabdi qaybdi oo kale ma xalilay markii idinku falka aad fulisaan iska imaada anaga sheekada meeshan ka shidayna waxa leenahay anaga dawladdiya tugadana waa soo qabanaynaa guddiga la saaraa dib dambana guddiga loo markayo marka cabdi qaybdi haddeertan aan kula hadlayo weli waxa lagu hayaa guddigiisa on the way telefoon kor haya la leeyahay marka waa sheeko macnaha qatara waay marka wuxuu yiri balantu ha noo ahaato imaaraadka basaasay dastuurkuna wuu bidhaanshay dilkiisuna waa banaanka qaranka waa badbaadadiisa qadarna waa baahideeda balaan jirin baafiskeeda imaaraad beenka sheega bil kasta bilyan ay ku dhiibi bartaasna ana u joogo barka ciidankii wala hadlaa macnaha ciidanku markay yiraahdeen jilib waxa ugu maqalaa jilib ayaa nin ka yimid mobilkiisa daba socono guriga cabdi qaybdi soo galay markii excuse-kii la weydiiyay maxay raadinayseen imaaraadka noo sheegeen marka taas qaybtaas ahayd waa garta qaybta kalena oo qaybna xoga yareeday qalbi dhagaxan ku daray macnaha xilligii propaganda xilligii shaqabaadi goobka wuxuu ballanqaad sameeyay bulshada arkay dhahayay bilaahi anaa wanaagsan bartaan u socdaa cadaalad budugeeduna waa dastuurka markaan booska istaago cadowga barigeena jooga bidhaantiis lama arkayo shabaabka beledkeena jooga hal bari waa baabiisa cidii oo barax ka daasho bilaahi anaa baxaya because shaqadayda waay وهو بالقاعدة يعني ده شكل الحمصارة مكتئ قبل ما شكل الحمصارة اللي يا باشا بالله أنا بحاول بكذا شغلي دواي إن كلا حد آن بدانشو كتابك وبدن كساري وحو بلغات سمي هل بهولدر كتوري مجاهد برورنايا بلشوي بحشة يدهايا هدي كلا بقنت جوية بلايا بيت كيد هاد أنا جند أو بقوله دستورك أنتو كبيري بيتكيس برغدي دستورك أنتو كبيري بيتكيس برغدي كديبي أمحار كان بعد أسيء سي أو أي أو بسلايو إستنحيلك أو بلاره ويقطع قلب ده حمرك الديباي عدي فت كده حيسي أسرع يدولد فدرالك مجر كليه وحيد إن إثيوبيا لقنعيه كرنتي بنك لوجا دجو أسرعون حلك كل دفاع ده معنيسو مركا أرنتاس هاد marka anu gabiya may shakal xamsaar ma baxshan marka shakal xamsaar ma baxshan aad duma satahay Cabdi Qaadir markan aan u soo noqono waraysigeena wad ogtahay dalka wali ma badeysna oo Somaliland wali waa ay maqan tahay bal siyaasadda xisbiga kaga aadan Somaliland
xisbiga kolley waxaa la sadar muuqdaa su'aal ka dhan xisbiga siyaasadda Soomaaliland ku aadan Soomaaliland waa dad walaala dhibaato gaartay cabasho qaba cabashadooda in la tixgeliyo xaq u leeyihiin ninkii warkiisa uusan beenbeenahayn ee Soomaali dhaba ana waxaa la rabaa in cabashadooda la dhageysto muhiimadda ay dalka iyo wadajirka u leeyihiin waxaa la rabaa in caqabadooda bahalkii cabashadooda la dhageysto la tixgeliyo meeshii wixii dhib ka jirana la yiraahdo warnimo intaana waa awoodna intaana ma awoodno laakiin inaan maalin walba oo la yiraahdo wada hadal Soomaaliland lala aada in aysan noqon hal campaign in maalin walba lala aado ma ahan oo daa gadaalkiisa oo aysan yihiin waxna hadiin waxna yeelin waxa sheegtan haween markaad maqasho Soomaaliland loo socdaa waxay tahay waa campaign maana wax dacada weligeed lama aadin cabdiqaadir marka yaad is leedahay arinta in fashil uu ku yimaado wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ka mas'uuliyad laba group ah mas'uulka labada group waxay yihiin waa groupkan ah Soomaaliland ka yimaada oo qabiil ahaan ka soo jeeda 4.5 xisaabta ku qaata oo dawladda federaalka qayb uga noqda qaybna waa qaybtan dawladda koonfur cidda madaxweyne ka noqota waa labadooda groupkaas markay tagayaan groupka madaxda aan ku horeeyay ee koonfureed markay ayagu ay rabaan inay beesha caalamka la hadlaan ayaa heshiiska barkee Soomaaliyan wadnaay rabaan inay yiraahdaan ayay isticmaalaan nimankan inay yiraahdaan Soomaaliya wadnaa marka arintaas waa qodobka campaign-ka ah campaign-kaas marka waa campaign lacageed marna waxay u isticmaalaan gudaha si uga midnimadii Soomaaliyeed difaacayna inay yiraahdaan ayadoon wax ka jira la arkin ayadana waxay tahay waa campaign labaad ay ku galaan groupkana ku soo haray waxay caqabad ku yihiin haddii Soomaaliland wada maqnaa lahayd waxaa dhici lahayd in ama si fiican loogu heshiiyo dad koonfur ka yimid oo saxay inta baxaan ay la soo dhiilgareeyaan waxay caqabad ku yihiin hadalkoodii mira dhali lahaay waxay groupka koonfureed u sahlayaan la joogtaan oo falsaah in iskala joogaan hal maalin kama hadlaan markaad aragto nin Soomaaliland oo ama xildhibaan ah ama wasiir markaad aragto oo dawladdaas federaalka ku jira maalintu hadlayo waa xildhibaan oo mushaar wasiir u qaata waa xildhibaan oo la taliyo raadsaa laba mushaarayaal la yiraahdo labadaas mushaar bisay difaacdaan waxay kala diidan yihiin in heshiiskaas mira dhala ma rabaano waxay sarrabeen waxay aaminsan yihiin haddii awoodda nimanka Soomaaliland matala oo jooga markay yimaadaan meeshan ay soo galaan nimanka yaryar ee maareeyo iyo mahdi guuleed iyo waa iska baxayaan wax u yaala lama arko rag kale meesha la wareega cali waraabe iyo bixiya meesha qabsanaya mabaad marka sidaas daraad iyagu waxay ku joogaanba meesha nimankaas intay maqan yihiin meesha ka shaqaysanayaan lacagtooda wax kale u joogaan lama arko sababta waxa ka fahmaysaa guddiga marka la magacaabayo xitaa lagu ma daro markay ka hadlayaanna waa nin cabasho xil raadsanaya ee wax kale kama hadlaan weliga ayaa aragtay waa maareeyo iyo waxa arkaan nin la yiraahdo iyo nin kala waxa jira dhowr mar hadalka soo qaad intuba waa mushaar kordhi xisbiga wadajir wuxuu aad u mucaaradayay intii uu xafiiska joogay mudane xasan cali kheyre markii uu baxay hogaamiyaha xisbiga waxa uu booqday madaxtooyada markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya dad badan baa arinkaas yiri wuxuu u booqday nin walba ninkiisa ha nooleysto aragtida wadajir ay ku aadan prime minister kan cusub muxuu yahay sayra prime minister ka cusub waa nin cusub waa yimid wax meesha loo keenana waxaan aaminsanahay waa inuu madaxweynaha la shaqeeyo madaxweynuhu cidda uu shaqada u dirsanana wuu yaqaanaa marka nin cusub waaye inaan ku fogaado mar raba wixii uu la yimaad ayaa annaga barasho noo ah hadduu noqdo xilkiisii nin qaada mas-uuliyadiisii qaada soomaalinimadii qaada waa ogahay inaan farmaajo u keenin waa ogahay aniga 4.5 wixii ku maqan aad matashaa wixii ku maqan ka qaad wixii ka maqanna u doon inuusan u keenin waa ogahay aniga geed igama saara laakiin waxaa la yidhi maxay roori doon horti lama rooro waxaa laga rabaa sidoo u dhaqma oo loo dhaqmayna anaga xasan cali kheyre wax dagaal oo nagala dhexi gaar ma jiro xasan cali kheyre tiim uu ka tirsanaa tiimkan la dagaashanay maanta baan isqabsano tiimkiisa intuu ku dhex jiro wixii uu dhibaato noo geystay xisbigan oo asaga uu ku matalo ama nin ha isticmaalo ama asagu ha sheegtee way jirtaa waxyaaba dhaceen laakiin annaga wax sida annaga maamulan wax u haysanaa maana wax la yiraahdo xasan muddo kale tiim ama meel joog wax la yiraahdo tiim ama qabiil ama ninkan oo hadda tiim ku jira kaasina tiim ku jira way fahmeen Soomaa nima isku bedeshay annaga nooma shaqeeyo horta midkoodna ma fahamtay Soomaaliya u shaqeynayay dad ay u joogeen kana loo keenay kii kale u jooga laakiin
ma ahan wax annaga nagala dhexeeya oo dhibaato oo la yidhaha xasan bahalkii isha xasan cali khayr ma jirto aad u maasan tahay waxaa soo gaarnay gabagabadii bal waxaad inooga warantaa kalsooni intee la eg ayuu xisbiga wadajir ku qabaa in doorashadan uu ku soo baxayo doorashadan haddii laga daayo nabad sugidda iyo xogeynta mahad guuleed iyo farmaajo ay ku dareen waxaan aaminsanahay 100% aaminsanahay inaan guuleysanayn cabdiqaadir ugu dambeyntii maxaa halkan fariin ugu gudbi lahayd taageerayaasha xisbiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed gudbi waxaan ku salaamay dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay garbaha isqabsadaan inay dhibaatada jirto u midoobaan inay dalkooda u midoobaan waxaan u rajaynayaa midnimo si gaara waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa haddaan nahay xisbiga wadajir anoo ku hadlaa xisbiga wadajir in ay xisbiga taageeraan ka mid noqdaan qayb ka noqdaan la soo joongareeyaan ayaan ka codsanaynaa qof kasta oo daneynaya xisbigan waxa waaye waa xisbi mustaqbalkiisu yahay dastuurkiisu yahay in uu long way magaca Soomaaliyeed haddii ay suurto gasho inay xisbiyo doorasho ku galaan one day in uu noqdo xisbi inta Soomaaliya joogto inuu xisbigaas shaqeeyo oo la iska dhaxli doono marka waxaan leeyahay ninkii siyaasadda u furfuran oo dhan inuu la soo xiriiro aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraysigii gaarka ah aan la yeelanay cabdiqaadir khaliif suudi oo loo yaqaan dhidhiile waraysiga waxaa idiin daadihinaya anigoo maxamed xuseen abuukar maxamed xarbi kaamirada iyo farsamada waa ismaaciil bowshe intaan dib ugu kulmeyno waraysi caynkaan oo kalena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad gelyo